madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabada gunaanudka kulan wareedka golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay shaqooyinka baaxadda leh ee shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan xukuumadda iyo rajada ay ka qabaan inay u horseedo xasilooni amni iyo horumar. Madaxweynaha ayaa ku adkeeyay golaha wasiirada in ay si daacadnimo leh ugu adeegaan dalkooda mudnaanta koowaadna siiyaan xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada caqabada ku ah dowladnimada Soomaaliyeed. Mas'uuliyadda aad qaadeen waa mid taariikhi ah oo horseedi karta samata bixinta shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Taasna waxaan ku gaari karnaa in aan mideyno xuduudda iyo caqliga una wada istaagno sidii aan dalka uga saari lahayn abaaraha, colaadaha iyo amni darada. Xasan Sheekh ayaa ku amaanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo ku-xigeenkiisa Saalax Axmed Jaamac dadaalka ay ku bixinayaan hirgelinta qorshaha dowladda ee Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. Barnaamijkaas oo fulintiisu ay shacabka Soomaaliyeed u noqonayso naruuro ay ku diirsadaan. Kulan wadareedka golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu xalay soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa golaha xukuumadda waxa ay ku lafagureen howlaha hortabinta u leh xukuumadda, hanaanka wada shaqeynta hay-adaha dowladda, adkeynta ku dhaqanka xeerarka dalka, dib u eegista dastuurka, amniga iyo xasilinta dalka, cadaaladda iyo garsoorka, horumarinta dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada.